السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن داوديال ملك سو joogtan idinba ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka iyo warbixinada dunida oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee warqa tube. maanta waa maalnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha Maarso sanada 2019. qodobada dunida ugu waaweyn ee aad barnaamijkeena ku daawan doontaan haddii ay bakar noqdana waxa ka mid noqon doona Kenya oo wada dadaaladii ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya uga dhadhicinayso in ay dacwadda badda kala soo laabato maxkamadda ICJ. maxayse Kenya ku diidan tahay go'aanka maxkamadda? wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkii India iyo Pakistan oo cirka isku sii shareeray, India oo diiday wax wada hadal ah inay la gasho Pakistan. waxaan kaloo barnaamijka ku soo qaadi doonaa madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ku dhawaaqay in dalkiisa uu caawin degdeg ah siin doono mid kamid ah wadamada caalamka. waa maxay go'aanka dalalka Islaamka ee xiisadda Pakistan iyo India? maxaase ka soo baxay shirkii Abu Dhabi ee dalalkaasi ay yeesheen? waxaad kaloo daawan doontaan dowladkii military ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sanad waliba sameyn jireen oo meesha laga saaray. madaxweyne Trumpna waxa uu fariin adag u diray hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi isagoo oo sheegay in dalkaasi uusan weligiis wax dhaqaale heli doonin. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. waa hagaag daawadayaal, aan ku bilaawno barnaamijkeena. dowladda Kenya ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya uga dhadhicinayso in ay dacwadda badda kala soo laabato maxkamadda ICJ. waxaana dowladda Kenya ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysaa sidii ay uga hortagi lahayd in maxkamadda ICJ ay go'aamiso dhulka ay labada dal isku haystaan. Kenya waxaa qasab ku ah in ay sugto go'aanka maxkamadda ICJ si xal looga gaaro muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. sidaas waxaa lagu sheegay maqaal dheer oo lagu qoray website-ka TV-ga Al Jazeera uu leeyahay. maqaalkan waxaa qoray qoraa sare ahna aqoon-yahan reer Nairobi isagoo oo sheegay in Kenya ay wax walba indha adeeg ku raadinayso oo ay markaasi dhaxda u xiranayso in wax walba ay soo boobto. maqaalka ayaa si dheer looga hadlay heerka uu ku bilowday khilaafkan iyo qaabkii ay dowladda Kenya ku ceyrisay safiirkii Soomaaliya ee Nairobi halka ay u yeeratay safiirkii u fadhiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. labadan dal ee dariska ah ayaa isku haysta xadbadeed cabirkiisu yahay 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg triangle ah oo ay ka buuxaan saliid iyo gaas aad u fara badan. 5 sano oo wada hadal ah kadib ayay labada dal isla aadeen maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ sanadkii 2014. waxaana haatan la dhowrayaa go'aanka maxkamadda ICJ ay ka gaarto kiiska muranka ah ee xadudbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. si kastaba daawadayaal, Kenya ayay qasab ku tahay inay sugto go'aanka maxkamadda maadaama uu been abuur yahay warkeeda ku aadan in biyaha la isku haysto lagu xaraashay shirki ka dhacay London. war ay soo saartay shirkadda Spectrum oo dowladda Soomaaliya u xil saaratay saameynta biyaha Soomaaliya iyo soo bandhigida xogta kheyraadka ku jira Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in xirmooyinka shidaalka ah ee lagu soo bandhigay shirkii London uusan ku jirin dhulka ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa dhowaan dacwad u gudbisay qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxaana ay uga ashtakoonaysaa Soomaaliya oo ay sheegayso inay ku soo gardaroonayso biyo ay Kenya leedahay. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Monica Juma haweeneyda la yiraahdo ayaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor akhrisay warbixin ay ku sheegtay in Soomaaliya ay ku soo gardaroonayso biyaha ay leedahay isla markaana ay xubnaha golaha ammaanka ugu soo bandhigayso cadeymo muujinaya in biyahaas ay iyagu leeyihiin. sidoo kale Monica Juma waxa ay warbixin kooban siisay guddiga amniga iyo nabadda ee midowga Afrika oo ay iyagana u soo bandhigtay waxa ay haysto iyo xogta saxda ah ee dooda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. iyadoo oo ay arrintaas taagan tahay ayaa waxa kaloo soo baxaya warar kale oo sheegaya in magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda ay ku kulmi doonaan hogaamiyaasha labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya. Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana la filayaa inay isugu tagaan Kampala halkaas oo ay ku wada hadli doonaan. dhigooda wadankaas Uganda Yoweri Museveni ayaana la filayaa inuu dhexdhexaadiyo isla markaana labada hogaamiye ay ka wada hadlaan xiisadda taagan, taas oo sababtay in xiriirka diblomaasi ee ka dhaxeeya Nairobi iyo Muqdisho uu markaasi gaabis galo isla markaana safiiradii labada dal kala ceshto. arrimahan dhan waxa ay muujinayaan in Kenya ay doonayso in si dhaqsi ah ay kiiska badda Soomaaliya uga soo laabato maxkamadda cadaaladda caalamiga ah. Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay wareegii koowaad ee kiiskan hor yaala maxkamadda cadaaladda caalamiga ah waxaana ay qubaradu u badinayaan in Soomaaliya ay ku guuleysan doonto kiiska hor yaala maxkamadda ICJ. sidaas darteed
kenya ayaa si hoose iyo si muuqataba waxa ay u go'aansatay in ay ku dadaasho sidii dacwadda looga soo celin lahay maxkamadda caalamiga ICJ inta aanan go'aan la gaarin, waxaana ay la kulmaysaa mas-uuliyiin fara badan oo Soomaaliya iyo kuwa ajnabi ah kuwaas oo ka dhaadhicinayso in arrinkan wax laga qabto. dowladda federaalka ee Soomaaliya waa ay ka aamusantahay arrintan, kamana aysan soo jawaabin hanjabaadii ugu dambeysay ee kiiskan la xiriira, waxaana ay ku qanacsan tahay go'aanka ICJ ay soo saari doonto. dadka sida dhow arrimahan ula socda ee wax ka qoraya waxa ay leeyihiin Kenya isku halayn badan ma qabto oo waxa ay aaminsan tahay in looga soo adkaan doono dacwadda hortaala maxkamadda ICJ. sidaas darteed Kenya waxay doonaysaa xal kale oo ah in wada hadal iyo qaab hoose wax lagu dhameeyo. Kenya waxa ay aad u daliishanaysaa oo ay aad u cuskanaysaa heshiiskii Memorandum of Understanding oo ay hore u wada galeen iyaga iyo Soomaaliya, heshiiskaas oo ay sheegayso in uu markaas ogolaanayo in la wada hadlo oo si hoose wax loo dhameeyo. laakiin dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo dowladda Soomaaliyeedba ma qabaan in hoos wax loo dhameeyo, waxay qabaan in cadaaladda horteeda lagu kala baxo. haddaba daawade, waa maxay sababta aysan Kenya raalli uga ahayn maxkamadda ICJ oo ay cadaadiska ugu kordhinaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya? fadlan daawade qaybta faalada ama kommentiyada inoogu reeb fikirkaaga ku aadan su'aashan. waa hagaag markana aan fiirino bariga dhexe. wargeyska New York Times ee kasoo baxa waddanka Mareykanka ayaa daboolka ka qaaday in 3 dal oo Carbeed ay ka faa'iidi doonaan adduun lacageed oo gaaraya $40 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. heshiiska Mareykanku uu bixiyay heshiiska qarniga ee ay saxiixan doonaan Mareykanka iyo Israel. waxaa sidoo kale la filayaa in daanta galbeed iyo marinka Gaza ay heli doonaan maalgelin ku kacaysa $24 milyan oo dollarka Mareykanka ah 10 sano ay soo aadan, sida New York Times ay soo warisay. ilo wareedyo aan la carabaabin ayaa sheegaya in Masar, Jordan iyo dabcan Lebanon ay noqon doonaan kuwa ugu faa'iidada badan ee qayb ka ahaada heshiiskan lagu magac daray heshiiska qarniga ee la doonayay in bariga dhexe lagu nabdeeyo. waxaa sidoo kale lagu warramayaa in heshiiskan uu horseed u noqon karo soo afjaridda colaadda 70 sano u dhaxaysa Israel iyo Falastiin oo wadadega bariga dhexe. wiilka uu sodogga u yahay madaxweyne Donald Trump ahna la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad ee waddanka Mareykanka, Jared Kushner, ayaa waxa uu safar ku mariyaa mandiqada bariga dhexe, waxaana uu ka dhacinayaa dhowr wadan oo Carbeed in ay heshiiskan ku qancaan isla markaana ay wax ka saxiixaan. wadamada uu safarka ku tagay isla markaana uu doonayo in ay heshiiskan ay taageeraan waxaa ka mid ah dalka isu taga Imaaraadka Carabta, Bahrain, Oman, Sacuudi Carabiya, Qatar iyo waddanka Turkiga. inkastoo heshiiskan lagu magac daray heshiiska qarniga uu muujinayo in la soo afjarayo colaadda 70 sano u dhaxaysa Falastiin iyo Israel, haddana waxaa la isweydiinaya su'aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay haddii wadamada Carbeed ay heshiiskan taageeri doonaan, kaas oo aan si buuxda u damaanad qaadaynin qaran madax bannaan oo ay leeyihiin Falastiiniyiinta. dadka reer Falastiin iyo maamulka Yahuudda ee Israel ee uu Mareykanku taageero ayaa waxaa ka dhaxeeya qadyado waaweyn, iyadoo oo dadka reer Falastiin dhulkooda si xooga maalin kasta lagu boobayo oo Yahuudda loo dhisayo. taas oo taagan ayaa heshiiskan imaanaya, waxaana dad badan oo muslimiinta caalamka ah ay aad uga digayaan in heshiiskan ay Carabtu taageeraan. isla wararka bariga dhexe ayaynu ku guda jirnaaye ku dhawaad 183 qofood ayaa ku dhaawacmay ka gadaal dibadbaxyo xoogan oo Jimcadii shalay tahayd ka bilowday waddankaasi Algeria, kuwaas oo looga soo horjeedo madaxweynaha waddankaas ninka la yiraahdo Cabdulcasiis Bouteflika oo doonaya in markii shanaad uu u tartamo xafiiska ugu sarreeya waddankaas. wakaaladda wararka ee dalkaasi ee la yiraahdo ABS ayaa soo warisay sabtidii shalay tahayd 1 qofood ayaa la sheegay inuu dhintay kadib markii uu wadnaha xanuunay, sida ay saraakiil caafimaad 10,000 oo dibadbaxyaal ah ayaa waxa ay ku baaqayeen in madaxweynaha 82 sano jirka ah ee Cabdulcasiis Bouteflika la yiraahdo uu baneeyo kursiga isla markaana uusan ka qayb gelin doorashada bisha Abriil ka dhici doonta waddankaasi Algeria. mudaharadayaasha ayaa markii hore u muuqday inay ku bilowdeen si nabdoon, inkastoo goor dambe oo Jimcadii ahayd ay isku bedeleen gacan ka hadal markii iyaga iyo booliisku ay isku dhaceen. booliiska ayaa adeegsanaya agabyo kala duwan oo uu ka mid yahay gaaska dadka ka ilmaysiiya si loo kala ciriiriyo dibadbaxayaasha. madaxweynaha waddanka Algeria Cabdulcasiis Bouteflika ayaa waxa uu la daalaa dhacaya xanuun xagga maskaxda ah, kaas oo ku soo booday 2013. waxaana la sheegayaa in hogaamiyahani aanu markaasi wax badan ka qaban karin xaaladda dalkaasi.
cabdicasiis mutafliiqa ayaa sabtidii da'diisu waxay noqotay 82 sano jir, waxaana uu u qudbeeyey dad isku soo baxay oo taageerayaashiisa ka mid ah. barnaamijkeeni wararka iyo warbixinadii dunida ayaad ka daawanaysaa shabakada wararka ee warqa tube. turkiga ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka in uu wax ka bedelo cunaqabataynta uu saaray dowladda iiraan. turkiga ayaa hadda doonaya in maraykanku uu wax ka bedelo cunaqabataynada uu kusoo rogay jamhuuriyadda islaamiga iiraan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi sabtidii shalayta ahayd, isagoo oo ka hadlayay kulan ganacsiga iyo warshadaha looga hadlayay malfuud gofazugla. wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi turkiga ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda uu leeyahay calaaqaadka ganacsi ee kala dhexeeya dalalkaas. cunaqabataynta iiraan innaga ayayna saameynaysaa, waxa aan doonaynaa in aanu si joogto ah talooyin uga dhiibanno, isla markaana aan maraykanka uga dhaadhicinno in uu wax ka bedelo habka uu cunaqabataynta ugu soo rogay waddanka iiraan. waxa aan si adag uga shaqaynaynaa in maraykanku uu mowqifkaas bedelo. keligeen ma nihin, xubno ka tirsan midooda yurub ayaa sidoo kale nagala shaqaynaya arrintaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga ayaa sidaas sheegay. mawluud gofazugla ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in turkiga uu saxiixay heshiis ay ku midaysan yihiin ku dhowaad 20 dal. heshiiskaas oo uu tilmaamay inuu ogolaanayo in ganacsiga si xor ah uu isugu gudbo dalalka adduunyada. maraykanka ayaa bisha agosto ee lasoo dhaafay dib ugu celiyay cunaqabatanadii xagga dhaqaalaha ee saarneyd jamhuuriyadda islaamiga iiraan, taasi oo laga qaaday sanadkii 2015. sidoo kale bishii November ayaa maamulka Washington waxa ay iiraan kusoo rogeen cunaqabatayntii labaad oo ay ka saareen dhinaca tamarta, iyadoo aysan jirin cid ka iibsan karta tamarta iyo sidoo kale cid keeni karta jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan. madaxweyne Donald Trump ayaa ka baxay heshiis 8 dal ay 2015 la saxiixdeen jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan, waxaana dalalka heshiiskaas qaybta ka ahaa ku jiray turkiga iyo sidoo kale waddanka la yidhaahdo jarmalka iyo 5 waddan kale ee codka diidmada qayaxan ee veto powerka la yidhaahdo ku leh qaramada midoobay. waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida ayaan daawadayaal isla soo gaarnay. madaxweynaha waddanka maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi aysan noqon doonin waddan dhaqaale ahaan meel sare gaara inta ay hub nuclear ah gacanta ku haystaan, oo ay diidan yihiin in ay hubka nuclearka iska tuuraan, isla markaana ay aqbalaan in adduunyada ay la macaamilaan. kuuriyada waqooyi waxa ay haysataa mustaqbal wanaagsan oo ay dhaqaalaheeda ku dhisi karto, waase haddii ay heshiiska ogolaato. laakiin haddii ay door bido nuclear, waxa ay noqon doontaa waddan wiiqmo oo dhaqaale ahaan u burbura. madaxweyne Donald Trump ayaa sidaasi ka sheegay shir uu ka qaybgalayay. kuuriyada waqooyi iyo maraykanka ayaa wadahadaladii u dhexeeyey waxay u muuqdaan in ay burbur qarka u saaran yihiin kadib markii shirkii ka dhacay Hanoi oo ah waddanka Vietnam ay isku afgaran waayeen warmurteedkii laga soo saari lahaa qodobo ka mid ah. kuuriyada waqooyi ayaa ka codsatay maraykanka in uu ka qaado xayiraadda xagga dhaqaalaha ee saaran, laakiin maraykanku waa uu diiday, waxaana uu hordhigay kuuriyada waqooyi in ay burburiyaan hubkooda nuclearka, markaas kadibna laga qaadi doono cunaqabateenada saaran. isla wararka gacanka kuuriya iyo maraykanka ku saabsan ayaynu ku guda jirnaaye. dhoolatuskii xagga militariga ee sanadlaha ahaa ee ay qaban jireen kuuriyada waqooyi iyo maraykanka ayaa sanadkan la baajiyey oo la joojiyey gebi ahaantiiba, waxaana la doonayaa in loo muujiyo kuuriyada waqooyi in xaaladda gacanka la qaboojiyo oo aan laga dhigin meel colaad ah. xogayaha difaaca ee kuuriyada koonfureed John Kyong-do iyo dhigiisa waddankaasi maraykanka ninka la yidhahdo Patrick Shanahan ayaa waxa ay isku raaceen in la joojiyo dhoolatuskii halkaa ka socday, taas oo looga gol leeyahay in la joojiyo xiisada gacanka kuuriya ka taagan. go-aanka lagu joojiyo dhoolatuskan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka cawday arrimaha dhaqaalaha ah ee ku baxaya dhoolatuskaas, iyadoo sidoo kale kuuriyada waqooyi ay markasta u arkaysay diyaargarow iyo duulaan military oo iyada ka dhan ah. Pyongyang oo kuuriyada waqooyi ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in kuuriyada waqooyi markasta ay diyaar u tahay in ay qaabisho cid kasta oo soo daandaansata. xaaladda gacanka ayaa hadda u muuqata in ay xasilooni kusoo laabanayso, inkastoo weli kuuriyada waqooyi aan heshiis rasmi oo ku aadan in hubkeeda nuclearka ay baabi'iso aan lala gelin. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinadii dunida oo aad ka daawanayseen shabakada wararka ee warqa tube. waxaa iga xasuusina daawadayaal in qaybta labaad aan kusoo qaadan doono warar kale oo xiise leh oo aan isleeyahay wax badan ayay daawadayaasha ku tixaan shabakada wararka ee warqa tube ka faa'iidi doonaan. inta ka horeysa nabadgelyo.